maanta xamar ka yeeraya Soomaalida SST waad garanaysaan faraha badnay iyo wixii la isu soo tirinayay ma doonayna inaan maanta dib ugu noqono midii waxaan doonaynaa ogaaska Shambara iyo ka Mushunguli iyo ka Baajuun iyo ka Dir iyo ka Daarood iyo ka Hawiye iyo ka Digili mir kulli intay gacmaha is qabsaan maanta sida u wada fadhiyaan waxay isu yihiin inay isu ahaadaan ayna yeelanin qof ka bedelan laandheere ma taqaanaa laandheeruhu waxa weeyaa ninka dadkiisa wata ee dadkiisa ku dhex jira ee Soomaalidu u siman tahay ee wuxuu ku abtirsada leh ee abtirkiisa ugu dambeeyana muslimnimada u yahay laangaab waxaa la yiraahdaa ninka aanu reer hebel baanahay ee ood yar intuu soo xidho albaabka soo ootay jufo yar sheegta ee albaabka intuu soo xidho jufo noqdo waxa hubaala oo shakilaana oo wax aan jirin ah qabiil nin ku faanay inuuna meel geenin waxa doonto ma ku sheego rasuulku wuxuu yiri dacuha fa innaha mumtina warwaa uf qabiilku waa uf iskaga taa waa uf in qurmoon lagu sheego ma wax saaran ba war maanta inteena isku qabiila tawxiid baayna kulmiya oo jinsi baayna kulmiya oo luqad baayna kulmisa oo qabiil baayna kulmiya Soomaaliya meesha waxa ka dambeeya aanaysa waa maxay bal waxa ka dambeeya ii sheega dadka yaqaan cilmiga jinsiga ayran Soomaalidu kulligood waa isku wada mid waa jareerde waa jileecde daarood baan hayde hawiyana hadii dhiana la idinka wada qaado kulli isku dhiig baati labada hadda jifada isku sheeganayso waxa laga yaabaa inay si kale u kala duwanaato aan qaadana marka midaas Jubbaland aynu garanno shalay wixii ay soo martay iyo waxaynu ahayn aan u soo noqono dhibaatadii shalay ina soo gaadhay iyo waxaan la soo kulanay inaan dib ugu noqono aan ka faa'iideysana maanta dawladnimada aan haysano taasa shakilaan dawladnimada aan haysana aynu ka faa'iideysano walaalnimada aynu ilaalino odayaasha dhaqanku geedkoodii intay fadhiistaan dadka waxay u sheegi jireen iyo hawsheega culimadu ha shaqayso xildhibaanadu dad bay matalayaan mas'uuliyad bay ku matalayaan ama fadlan ha noqdeen ama isteed ha noqdeen waa inay bulshada ku dhex jiraan waxa dhabta u sheegaan waxa aad loogu hanqaltaagayaa saaka adiga suugaysaan inaan ka hadlo doorasho la isku haystaa waxaad maqlaysay Jubbaland oo leeyahay doorashadu ma rabtaa la yiri ma dhacayso waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Jubbaland waxay u faradhuuban tahay inay doorasho wadanka ka dhacdo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya iyo meesha ay marayso waxa asal u ah isbeddelka siyaasadda ee dhacaya waxa asal u ah 4 bilood inay doorasho dhacdo oo cidii calafkeed uu siiyo uu qaato waxa asal u ah dadku waxay ku heshiiyeen inay meel mariyaan taasaan diyaar waxaan u maleynayaa saaxiibaday baa ka hadlay maanta khilaafka la isu hayaa waxa uu yahay war waxaan idhi wadanku doorashaha aado Jubbaland gobolay ka tirsanay maanta gobol dhan yaa Malaysia la soo ururiyay intii gacanta loo geliyay yaa maamulkii dawladda iyo ciidankii iyo dhowr iyo 10 sano dadkii dagaalka ku jiray intii laga soo bixiyay yaa waxa la qoladana maamulayso oo maxay maamulaysaa doorashada soo socota inay wax ka qabado kuraasta taalaha u qaado waxa yaa aqbalay waxaad ogtiin wadada gaariga doolow ka baxa ee luuq u socdo 78 kiiloomitir isagoo qofna la soconin buu socon jiray iska daa balad xaawo iyo doolow iyo ceel waaqiya saasa lagu kala soconay maantana waxay gaarnay iyadoo weligood sabab canshuur ka qaadin inay irid walba ka qaadaan oo loo fudaydinayo isleedahay ciidanka dawladdu ay leedahay kii xuduud ka ilaalinayaan ay yihiin kuwa iyagu dadka dhibaatada u geysanaya mushkiladda sameynaya waanu wada hadalnay waxaana waraan isu tanaasulo
oo mujtamac Soomaaliyeed baana fiirinaya oo hooyo agoon leeyahayna fiirinaysa oo oday indhala baana fiirinaya oo mid gablanaana fiirinaya intaas cudur baa jirtay dalkaani sidoo ku badbaadi lahaa ka shaqeeyo taasaa keentay inaan intaan xamar rasuul nimaano intii oo shir galo la isu tanaasulo oo la gaaro waxa naga dhaxeeyay qabanayna ka wada shaqeeyo madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalku waxay ku heshiiyeen in wadanka doorashada ay dhacdo xilligeedii ku dhacdo waxaan idhi war gobolka Gedo Jubbaland baa ka tarisa heshiis baan gaarnay waxaan doonaynaa gobolka Gedo in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo maanta gobernatoore laga bilaabo ilaa intii gudoomiyayaasha ahaa hal midoo ka jooga malaha maalin walbana waxaad arkaysaa warqad la leeyahay gobolka Gedo ka soo baxday waa la qorayo wax lagu sameeyo waxa kaaga daran haddii calaamadda la toosinayo waxa ma ahaateen calaamadii lafteeda la qaloocinaya iyo calaamadii war waxaan rabnaa inaan Soomaali u sheegno inaanu nahay Soomaali horgalkeedii sababtoo ah maanta annaga Jubbaland Soomaali ah sababtoo Soomaali baanu kulminaa waxaan rabnaa inaan hooseeno doorasho xalaal iyo xor waxaan rabnaa mid lagu qanco ninka hadda musharaxa iyo ka madaxweynaha hadda fadhiya ka kulligood inay meesha wada galaan waxaan rabnaa ninka madaxweynaha inuu noqdo musharax laakiin processka dhexdiisa uu ka dhaco waxaan rabnaa Jubbaland inay la sinaato dawlad goboleedyada kale waxaan Soomaali rabaa inaan u gudbiyo ku idhaahdo Soomaaliyey waxaan rabnaa inaad xakam noo noqotaan ood gartayada qaadaan war inay Galmudug doorashadeeda qabsato labada meelood oo Puntland labada meelood ay qabsato oo Hirshabeelle qabsato oo Koonfur Galbeed ay qabsato oo Jubbaland la yiraahdo idinku ma qabsan kartaan annaga idin qabanayna sharciga qoray yaa xakam ka noqonaya arinta wax garadka bulshada Soomaaliyeed siyaasiga Soomaaliyeed iyo qof kasta oo aqli u ribaan u deynaya inay gartaa xukumaan qof kasta oo Soomaaliya oo aqli la waan rabaa inuu jawaabteeda bixiyo saaxiibada waxaan leeyahay inaad doorasho la qaban tiraadaan nin walba oo labadiisii meelood banaysto Jubbaland la yiraahdo idinku ma qabsanaysaan la idin qabto haddana garbaari ku qaban kareen Kismaayo sabab aan ugu qabtaan ma jirto waa soo kayb haddii kale halkan aan ku wada qabanaya kulligood